السلام عليكم سودة وولال وحاسي عن بقادينا قصديني جعلك حنونك بدنيت qaybteedii saddexaad qaybtii hore waxa ay noo joogtay qadar oo weji xiran ku soo dhaweysay xiriirkii cusbaaye Axmed la yeelatay kadib markii loo sheegay inuusan ahayn qof sahlan sida awgeedna ay wax badan tigtooni ka muujiso iyo Axmed inta uu maaro u waayay arinka u sheegay hooyadiisna iyadoona dejisay qorshe cusub oo ay qadra kaga maseerinayso iyadoo arimahana u xil saartay gabadhii eedadu ahayd ee Shukri taas oo ay iyadna inta ay jaanis ku heshay labadooda oo wada jooga iska dhigtay inay Axmed wax kala dhaxeeyaan talow qadra maxay noqon doontaa falcelinteedu aan si aan baqaadno qisada qadra waxa ay aad ugu carootay qaabkii waalida ahayd ee ay Shukri ugu dhawaanaysay Axmed balse intaaba waxa ugu sii darnaa hadalladii dabacsanaa oo ay Shukri adeegsanaysay iyadoo ugu dambeynna Axmed u kaxaysatay goob lagu caweeyo si ay ugu soo wada casheeyaan qadra cirka iyo dhulka ayaa la wareegtay iyadoo taagan ayaana Axmed lagu horkacaystay ciil iyo caraf darteeda ayayna sariirta la kortay in cabaar kadibna Axmed iyo Shukri hooygii ayay ku soo laabteen laakiin waxa ugu yimaadeen qadra oo sidii u fakaraysay ay hurday halka ay iyagiina midba qolkiisa u aaday subaxii xil hore ayayna qadra soo toostay iyadoo wali ciilan waana ay isaga soo baxday gurigii iyadoo cidna u sheegin in ay tagayso Shukrina goor dambe ay hurdada ka soo toostay balse qoftii ay maaganeedba waa ay baxday iyadana halkii ayay ku baxday maadaama ay hoosheedu ahayd sidii ay qadra ugu maseerin lahayd oo kaliya wayna ku guuleysatay hadafkeeda Axmedse jiifkiisa ayuu iska sii watay qorshaha ay Shukri iyo maamada isla wadeen ee ahaa in qadra laga maseeriyo Axmed lama uusan la socon wax walibana wuxuu u haystay wax iska caadi ah ugu dambeyn markii uu hurdada ka soo toosay ayuu qofna arki waayay maadaama ay gabdhihii kala tageen isla markiiba qadra ayuu talka ka wacay balse waxaa loo sheegay in ay maqan tahay maalmo ayuuna ku celcelinayay talkeedii balse mar waliba Sucaad ayaa talka ka qaban jirtay oo siyaabo kala duwan ugu sheegi jirtay inaysan qadra joogin talow ma ka dhabbaa mise wax kale ayay Sucaad maaganeed wuxuu xaalka sidaa ahaadaba Axmedna uu isbuuc juuq iyo muuqba ka waasanaa qadra ayaa gabadhii Shukri ahayd si toos ah xiriir ugu soo bandhigtay kaasoo u muuqday mid ka sii quustay xiriirkii qadra balse sheekada la yaabka leh waxay ahayd in Shukri ay xiriir hoose la lahayd qadra walaalkeed Axmedna ay ku darsatay walay gabadhan waxay soo wado ma sahlana muddo bil ah kadib ayay Axmed iyo qadra oo sidii u kala aamusnaa waxay isku arkeen munaasabad ay ka soo qayb galayeen dhammaan familiyadooda oo wada ahaa kuwa aad isugu dhow balse wax hadal ah ma uusan dhex marin iyagoo midba midka kale ka gaabsanayay balse Axmed hooyadiisa ayaa aragtay oo si wanaagsan ula socotay waxa ka dhaxeeya lamaanahan inta ay labadooda isu keentay ay halkii waana ugu aqal celisay ayadoo ugu dambeena u qancisay inay isa saamaxaan halkaana ay ka sii ambaqaadaan farxad noloshooda halkaas oo lamaanihii kala cariisnaa muddo kadib ugu midoobeen dhanka kale Axmed waxa uu bilaabay inuu ka gaabsado gabadhii Shukri ahayd maadaama uu dib u hantiyay qadra xiriirkeedina waxa uu ka dhigay mid iska cagajid ah laakiin taasi wax saameyn ah kuma aysan yeelan Shukri maadaama aysan iyaduba wax jacayl ah u hayn balse waxa ay su'aashu tahay sidaa miyay ugu hari doontaa la arki doonaa kolay dhanka kale qadra waxaa loo sameeyey taleefan cusub oo qolkeeda jiifka ah loo geliyey kaasoo ka madax bannaan midka laga isticmaalay guriga intiisa kale si ay waqti waliba ula sheekaysato Axmed qadar hooyadeed ayaana sidaa yeeshay oo ahayd maskaxdii ka dambeysay talaabo waliba oo ay qadra la soo qaaday Axmed sida aqbaladii degdega ahayd ee ay xiriirkeeda ku aqbashay iyo habdhaqankii ka dambeeyay qisaduna waxay isu rogtay mid ay hooyooyinka lamaanaha ku hardamaan maadaama Axmed hooyadiina ay ahayd maskaxdii ka dambeysay qorshihii Shukri walow ay ka mideysnaayeen labada waalidba
isu keenidda carruurtooda balse ay u kala mareen waddooyin kala duwan ayagoona haddana is ogeyn aan ka gudubnay Qadri iyo Axmed waxay markaa isu heleen jaanis ka ballaaran kuwii hore oo ay ku sheekaystaan balse ma aysan noqon kuwa isla jaanqaada oo si wanaagsan isku fahma maadaama Qadri ay ahayd qof la hagaayay Axmedna uu ahaa ugaarka la ugaarsanayay si uu mar waliba xiiso ugu qaado ayada mar waliba uu dareem xiisahaasina uu jaceylku ku sii baahayay kaasoo ahaa ujeedka ugu weyn ee laga damacsanaa laakiin maskiinku sidaa waxba uma sii ogeyn haddii uu qof kale talo weydiisan lahaa ma uusan ahayn qof bulshada dhex gala waxa uu kaliya asxaab ka haystay aabihiisa iyo hooyadiisa Axmed culayskii ayaa ku batay Qadarna waxay ku noqotay sida bahal maalinba si ayay ula hadli jirtay kibir iyo isla weynina waa ay la soo baxday taasoo ugu dambeynna Axmed u dulqaadan waayay asagoo go'aansaday inuu gabi ahaanba isaga tago Sacuudiga oo uu Yemen u wareegto muddo kooban qorshihiisa ayuuna la wadaagay Qadra balse aad ay ugu argagaxday oo ugu naxday inuu Axmed ka tagaayo waxayna in badan isu howshay in uu safarka Axmed ka baajiso laakiin kuma aysan guulaysan oo Axmed wuxuu ahaa mid soo gaaray go'aan adag talow miyuu Qadra ku soo laba kacleen doonaa jaceylka marka uu Axmed baxo Qadra hooyadeedse ilaa intee ayay qorshahan sii wadi doontaa la soco qaybta afaraad fiidiyowga waxaa idiin soo diyaaro oo idiin soo gudbinayo anigoo ah Khaalid Cali Guuleed tan iyo muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo